بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعيق ومحمد جامع محمد وحان قبا جرادان سنكرت iyo dhiikarka iyo baawasiir 720 sano Sacuudigan ka shaqeyn jiray 39 sano Soomaaliya nimid maalmeen ama iska maray niba wuxuu war shirkad Chinese oo liyaa Tiens ayaa dawo effective oo waxa daweeysa haysa I couldn't believe marka isaga lacagtii soo dhiibtay waxaan waxba shirkad haygeeyay 5 July ayuu ii keenay wuxuu yiri dawo kalena ma cuni kartid dawadii baan cunayay bil gudaheed waxaan dareemay caafimaad dhiikarkaygu 200 300 buu ahaan jiray hadda waa 120 sonkortayduna 200 300 bay ahayd maanta waa 110 waa ilaahay mahadiis waxaana anigu aaminsanahay shirkadan la yiraahdo Tiens inay tahay a gift sent by Allah to Somalia inay tahay hadiyad ilaahay u soo diray Soomaaliya in ummad badan baa lugaha laga goyn jiray ummad badan baa u rafaadi jirtay ummad badan baa u dhibaataysay wixii oo dhan maanta waa laga baxay maamo Zahro iyo gabadheeda deeqa Soofe waxay joogi jireen meel yaa hodan markay arkeen dadaalkoodu inuu gaarsiiyay 8 star ayay waxay yiraahdeen kuma qanacsanin waxaanu ku qanacsanaynaa inaanu meel annagu aan leenahay aan furano bulshadu isugu timaado annaguna aan ku faa'iideysano dadkuna ku faa'iideystaan shirkadana waxa la asaasay 1995 waxay ka shaqeysaa 190 dal malakaliya medicine waxay leeyihiin decoration waxay leeyihiin machinery Soomaaliya kaliya ayaa waxa ka soo gaadhay shirkadan dawada sanadkii waxay faa'iidaan 5 bilyan oo dollar shirkadana shirkadaha kale oo traditionalka waxay kaga duwan tahay shirkada traditionalka capital bay leedahay salary baa jira employment baa jira shirkadan capitalkeedu waa dadka invitationka wicitaanka weeye capitalkeeda runta ah invitationkuna waxa ay marketingkoodu leeyahay if you invite you will keep away the poverty haddaad invitation samayso oo dad wacdid fakhriga waa ka fogaanaya shirkadana waa shirkad khasaaro lahayn waxa kaliya ay leedahay waa faa'iido laakiin waxay u baahan tahay dhabar adeeg in loo dhabar adeego sida aan idin sheegayna kaliya baahina dad badan xaafadda degan ayaa waxay ii sheegeen dawadan inay ku dawoobeen adaguna waxaanu lahay one family shirkadani qabiilna ma leh tacliim buu leeyahay ma leh anigu master baan ahay korneyl military aan ahay Iraq baan ka soo baxay waxaasoo dhan meeshan kama shaqeeyaan afar luqadood baan ku hadlaa English Italian Arabic and French waxaasoo dhan ma shaqeeyaan waxa qaadanaya waa gabdho iyo islaamo laga yaabaa qaarkood islaamaha inay waxba qoreen laakiin waxay leeyihiin xirfad sidaa darteed ummadda Tiens maanta joogta iyo kuwa niyadda ay kaga jirtaba waxaa leeyahay waa fursad dahabiya ah oo aan la heli karin xukuumadda waxaa laga qaataa 200 300 laakiin Tiens markaad gaadho 10,000 haddaad dhimatid waa dhaxal caruurtaadi baa qaadanaysaa ilaahay ha loo barakeeyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh